بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شعبي reer Somaliland iyo saxaafadaba waan salaamayaa. Sidii aan idin ballan qaaday maalintii ayman waxaan jecelahay maanta inaan idin la hadlo dhowr qodob muhiim ah ka hadlo su'aalahana idin fasaxo wixii idinku aragtaan inay muhiim yihiin. arrinta ugu horeysan ka hadlaya waxa weeye arrintii doorashooyinka. Sidaa ka warqabteen waxaa saddexda xisbi sanadii iyo badh kadib ay soo afjareen khilaafaadkii siyaasiga ahaa ee ku saabsanaa doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka qaranka. heshiiskaas inuu suurto galo waxaa gacan weyn ka geystay beesha caalamka, gaar ahaan safiirada EU-da iyo dowladda Ingiriiska. waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa dadaalkii weynaa ay muujiyeen safiirka EU-da isagoo ka wakiila dhammaan dalalka EU-da mudane ambassador Nicholas Berlanga Martinez iyo wakiilka dowladda Ingiriiska uga wakiila Somaliland xafiiska halkan ku yaala Mr. Stuart Brown oo ilaa maalintii ugu dambeysay la saxiixay heshiiska goobjoog ahaa, heshiiskana kaalin xoog leh ku lahaa, suurtana geliyey isu soo dhoweyntii axsaabtu inay heshiiska gaadhaan. waxaan u mahadnaqayaa sidoo kale axsaabta qaranka oo muddo dheer kadib heshiiyey soona afjaray khilaafka siyaasiga ah. waxaan kaloo mahadnaqayaa madaxweynaha oo sanad iyo badh kadib tanaasul sameeyey. waxaan halkan ka caddaynayaa hortiina ujeeddada waddani u jiidayey arrinta hawsha intaas may ahayn in la kala guulaysto, waxa ahayd in la wada guulaysto. ujeeddada wadani marna ma ahayn in la isgarbiyo ee waxay ahayd in la isgarabsado. ujeeddada waddani waxay ahayd in la helo doorashooyin hufan iyo guddi doorasho oo lagu wada kalsoon yahay. saxaafaddu way haysaa heshiiska 8 qodob buu ka koobnaa. 8daa qodob qodobka koowaad wuxuu ahaa arrintiiba ku saabsanaa in la kordhiyo xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka iyadoo la raacayo xeerka wax ka beddelka iyo kaabista waxa iska leh baarlamaanka oo labada aqal ka kooban, golaha wakiilada iyo golaha guurtiisa. waxaa la isla gartay in loo raaco habka xeerku dhigayo, baarlamaankana la horgeeyey mooshin ay wada saxeexeen xildhibaanada saddexda xisbi qaran, madaxweynaha, kulmiye iyo axsaabta mucaaradkuna ka wada shaqeeyaan siday arrintaasi u suurto geli lahayd. waxaan la isla qaatay in 8 August ugu dambeyn la horgeeyo golaha. waxaan kelimad u jeedinayaa golaha wakiilada saaxiibaday. in badan baa la xamanayay, maanta xantii ama way rumoobaysaa ama way beenoobaysaa. 15 sano joogeen dadku waxay ku xamanayeen ma rabaan inay kuraasida ka kacaan. maadaama khilaafkii axsaabtu soo dhammaaday maanta arrintii gacantooday ku jirtaa, waana imtixaan la imtixaamayo. diidmadoodu ama ogolaanshaha mooshinkaasi wuxuu ka marakici doonaa in xanti rumowdo oo ay doorashada diidan yihiin iyo inay aqbalaan oo ay beenowdo oo aynay diyaar u yihiin inay kuraasidana ka kacaan, doorashadiina ay suurtowdo. waxaan shacbiga Somaliland ee u oomanaa muddada dheer
doorashada oo aan ku sheegi karo dhammaantood inay yihiin daneeyayaasha doorashooyinka inay gacan ka geystaan baa loo baahan yahay in heshiiskaasina hirgalo mooshinkaasi la ansixiyo waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshada ay ugu horreeyaan xisaabta qaranka qolooyinkii beri hore kabaa naga kululeeyey ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenada arrimo ururada bulshada soonsaf akaademiyada dhallinyarada haweenka oo dhammaantood doonaya in doorashooyinka qabsoomo waxaa la doonaya inay ka qayb qaataan culayskoodana muujiyaan dhawaaqoodana muujiyaan in doorashadu qabsoonto waxaan ku darayaa intaas caqabado badan baa hortaagnaa doorashada markaa beesha caalamku waxay soo jeedisay caqabadahaas in marba mid la qaado caqabaddii ugu horreyd waxay in la heshiisiiyo axsaabta tii way dhacday caqabadda labada ugu muhiimsanayd waxay ahayd arrintii saama qaybsiga waxaan u sheegayaa shacbiga reer somalilan inaan heshiiskii maalintii dhaweyto aanu meesha ka saaray in la xalliyo arrinta caqabadda muhiimkaa ee saamin qaybsiga kuraasida golaha wakiilada waxaanay noqon doontaa arrinta labaad ama caqabadda labaad ee loo diyaar garoobo in la qaado si doorashadii u qabsoonto waxaan jeclaa arrintii doorashada intaan kaga baxo gobolka sanaag muddo 4 sano ah shaqaaqooyin baa ka socday dad badanoo shacbiga ku dhintay oo ka badan 60 weli arrintii may dhammaanin arrintaasi waxay saameyn amni ku yeelatay dhammaan gobolka sanaag arrintaasi waxayna tusinaysaa awoodda xukuumadda somalilan ama kulmiye hore ha noqdo ama kulmiye dambe ha noqdo oo 4 sannadood xal u waayay arrintaas waxay muujinaysaa inay ku fashilmeen inay arrintaa nabadeeyaan waxna ka qabtaan somalilan markii ugu horreysay shaqaaqa ka dhacdo ama colaadi ka dhacdo maaha horey colaaday noo soo mareen beela la xidhiidha waddanka dagaalo sokeeya ka dhacay jabhadaynu soo xaraynay baa jiraysa sii ka mid tahay wabar baa ka mid ah arrintiisii la dhameeyey marka xukuumaddu dhaliil weyn bay ku leedahay iyadoo waayo aragnimadaa buuxda aynu leenahay inay 4 sannadood arrintii ceelafkii wax ka qaban kari weyday somalilan arrimaha waxaa lagu dhamayn jiray si xikmad maamul wada hadal iyo maamuus madaxweyne waxaana la isticmaalayay xaba kasta oo bulshada midayn karta laguna dhammaynayo howlahaas waxaa yandaro ah in maanta marka la eego khudbaddii madaxweyneha ugu dambeysay ay yandaro tahay in odaynimada maamuuskaas iyo xikmaddaasi ay ka dhammaatay madaxtooyadii somalilan madaxweynaha hadalkiisii ugu dambeeyey waxaa ka mid ah in dulqaadka iyo doqonnimadu ay walaal yihiin waxay la tahay ereygaasi muwaadin kastoo reer somaliland dhegihiisa ugu dhiba waxaan halkan ka sheegi doonaa tix yaroo gabay aan ka soo qaatay gabaygii hadraawe isu suran lo odhan jiray tixdaa iyo khudbaddii madaxweyne way isula ka ekaadeen bal idinkuna waynu ila eegi inay isu eeg yihiin waxaa ka mid ah markaa uu la hadlayey philibiin nin xukumi jiray oo marcus lo odhan jiray iyo gabadh madaxweynenimada ku haysatay samarkii iyo dulqaadkii iyo naxariista badan bay dadku igu ogaadeen nafta aad sugaysaan ma awoodahaygay yamyam iyo qadaadi weyn xataa caanalaydii dooc ugu tukubayaan markaan dhiiran waayaa laysii qodqodaya
doofaarka ficilii naar loogu daayimi kol haddii dubbe iyo waran duunkayga lala dhacay yaa dabarka igu xidhay horta maan dagaalamo anigu maan istaafaco madaxweyne dulqaadkii baa iga dhammaaday talow maxaa ku xiga waa iska garanaysaan baan malaynaya bal idinkuna ila qiyaas oo khudbaddii madaxweynaha iyo tixda hadraawi may isu eegiyiin waa ka xumahay dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacda ceelaf weyn ninkii ciidanka ahaa lagu dilay waana taxsiidaynayaa madaxweynuhu xusaa askarigaa lagu dilay ceelaf weyn madaxweynuhu ma xusin in hooye aan waxba galabsan oo aan hubsidan ciidanku xabad ku dilay wax la aqbali kara maaha qof aan hubaysnayn oo muwaadina oo weliba hooyaa oo weliba dumara in xabad lagu dilo lagana soo qaado inaa wax dhacay aana jirin ciidanka waa la ixtiraamaa waa xaaraan in wax loo geysto ciidanka ammaanka sidoo kale waa xaaraan in muwaadin aan hubaysnayn oo waxba galabsan xabad lagu dilo dabeedna laga soo qaado inaan waxba meesha ka dhicin waxaa kaloo hadalka madaxweynaha ka mid ahaa inay jiraan beela ka baqaya ceelaf weyn nabad baynu ka rabnaa odayaashii qaranka o dhan baa u baxay arrintaasi arrin nabadda u adeegeysa maaha waxaad moodaa in kabriid ku qabanayso colaaddii halkaa ka jirtay iyo nabadeyntii halkaa laga socday waxay u egtay midiye iyo mudacyo la isugu dhiibayo dadka waxaan qabaa in xalka sanaag aanu maanta ahayn xal military waxaan qabaa inaan xalka sanaag maanta ahayn xabad waxaan qabaa in gobolka sanaag maanta xalkiisu ahayn in janan loo diro waxaan qabaa in gobolka sanaag xalkiisu maanta yahay xal siyaasi ah iyo erge nabadeed xalka gobolka sanaag wuxuu ku jiraa oo furihiisu yahay in madaxweynuhu gacan siiyo odayaasha ergada ah ee salaadiinta ah ee cuqaasha ah ee ilaa hargeysa iyo galbeedkeeda ka gurbaday ee maanta ku sugan gobolka si ay usoo afjaraan arrintaas xalka sanaag waxaan u arkaa in furihiisii jeebka madaxweynaha ku jiro oo ahaa inuu saamaxaad gudu fidiyo caare iyo inamada hubaysan ee la socda iyo in laga shaqeeyo heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee ceelaf weyn wada dega somalilan jabhad humaysan uma baahna waanu cambaaraynaynaa in somaliland ka abuurmaan jabhadaha hubaysan sidoo kale waxaanu cambaaraynayaa weliba si adag u cambaaraynayaa in somaliland uu ka abuurmo xukunka talis taariikhdu waxayna baraysaa in jabhadaha hubaysani ay dhalaan digtaytaradu iyo kaliftalisiyaashu somaliland waxaad moodaa haddaan ilaahay u bixin inay qaaday waddadii kalifitalisnimada muusena waxaan leeyahay haddii aad dariiqaa qaaddo somaliland oo dulqaadkii aad doqonnimo u taqaano in somaliland gacantaada ku burburi karto waxaan intaa ku darayaa waxaanu sida ugu adag u cambaaraynaynaa waxaan meel qijiyey bahal ceedhin ma daayo nina caadadii ma baajo dhaqanka kulmiye waxaa beryahan noqday sidaa uu madaxweynuhu leeyay baa ka dhaba dulqaadkii baa iga dhammaaday saxaafadda maalin walba la xidhxidhayo ay ugu dambeeyeen afartii wariye si adag baanu u cambaaraynaynaa
waxaa intaa dheer in kulmiye iskaga qasmay cid xasaanad leh iyo cid aan xasaanad lahayn oo ay maanta xidhan yihiin xildhibaano lasoo doortay oo ka soo jeeda degmada Gebile iyo degmada Garadag. taasi waa gef sharci waxaanu ku baaqaynaa in xorriyadoodii loo soo celiyo. waxaanu u baaqaynaa xukuumadda inay dadka berbegeydada ah ee saxaafadda iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo hooyooyinka iyo dhalinyarada ay ka waantowdo xadhigooda maalin kasta. aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan idin fasaxayaa su'aalaha.